waxaa meesha halkan ku ogaaday anigoo nin yar ahoo haddii lagu kuurooyahay ilaa 19 jira ayaan anigu halkan ogaaday marka dee sidan imika loo fahamsan yahay ay waxtar u noqotay maanu aqoonin laakiin hoyga jinka ayaa dadkii hore waaweynaa ku sheekaysan jireen moogti markaana hoyga jinka un baan u aqaanay taariikhdaas aan arkay waxay ahayd 1960kii markii la odhan jiray ayay ahayd anigu ayaa araggeeda arkay moogti xilligaasaana guursadayba oo dhaqan sameeyey marka ilmii ugu horreeyey curada ay dhashay nin buu ahaa halkan ku tababari jiray markay hooyadii awrta amba ay soo dhaaminaysa amba awrta iyo waxaasoo kale ay ku maqan tahay ilmo caruur halkan oo kale guryahan oo kale ku ay jiray gurigii koobaad aynu soo maray ayaan keeni jiray oo ku hoos jeeyin jiray maalintii saan oran jiray looda baalahan sacyaashan dee candhadaasaan ku fahmay inay waxaan loo tahay moogti markaa waxaa la odhan jiray waa loodan ku lisi doonaa aamus sidaasaan ugu maaweelin jiray moogti markaa dhaqan ahaan anigu waxaan u arkayay dee waxay loo fahamsiiyeen dadkii waaweynaa waa hoyji weeyaanoo jin baa ku dhigtay inuu waxtar noqon doono oo dee mar laga faa'iidaysan doonana maan dee u fahamsanayn moogti nasiib wanaag waxay ilaa iyo haddii laba 18 ayaa yarkii aan ku maaweelin jiray sidaas ayaa Jabuuti u baxsaday isagoo doonaya maraakiibta ku dhuunto markaasuu arkay waxaan lagu daawanayo fiidiyoyada laga soo daayay Jabuuti oo laga yaqaano oo dhul laga baadhay dooda waxaan oo kale dabeedna inankii waa la soo tagay waxa Jabuuti ka soo noqday wuxuu iga warramay markuu yimi aaba halkan waxaan ku arkay Jabuuti waxaasoo laga daawanayo Soomaaliya markaa taariikhdaas moogtay 18 baa dabeedna waxaan idhi waxba cidna ha u sheegin yaana bal inaga burburinay inaga taa maruu bay ilaahay manaafacaad ka keeni doonay dabeedna halkan anigoo beeryar iska falanayo 2002 oo taariikhdaas waxay 2002 bishii 6 ayay nimanka Faransiiska oo soconaya oo berbere ka yimi ayay yimaadeen waxay yidhahdeen macluumaad baanu doonaynaa buurta laaskeel ku yaala baanu doonaynaa ayaanu doonaynaa dabeedna waxaan idhi wuu jiraa waa laydin tusi doonaa laakiin ma laydinka warraysaa dee Somaliland waddanka dowlad baa ka jirtay hawaalna loo geebeynaa meel walba waana laga warrayaa waa la socona deedna waxay igu jawaabeen bal dhulka noogu qor macluumaadkaad adigu ku aragtay deedna inankii berigaas soo sawiray soo arkay Jabuuti halkan aan ku maaweelin jiray isagoo caruura ayaan dhulka ugu xariiq wixii dhagax inoogu yaalay dabeedna sacaas iminka halkaa ku yaala ayuu dhulka ugu xariiqay kaasuu okay waxaan doonaynaa waa wax 17 cashana Somaliland baan ka baadhaynay annagoo berbera uga baxnay bari nasiib wanaag maanta ilaahay waa kan halkan isku keenay bahashan aan doonaynaa waana laydinku aqoonsan doonaa haddaa Somaliland tihiin dabeedna inankii baan soo raaciyey way soo arkeen dabeedna ayagoo aad u faraxsan oo le wixii baa ilaahay halkan uu naga siiyey reer badhaadhay baa tihiin ayay igu soo noqdeen dabeedna habeenkii Hargeysa tageen madaxtooyaday galeen dabeedna waxay ugu warrameen markaa madaxweyne haystay iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaanu soo helay kumburta la yidhaha laaskeel oo laydinku aqoonsan doono haddaa ay fahamtaan waa laydinku aqoonsan doonaa buuri dabeedna waa halkay ku taallaa laaskeel bay ku taallaa cidiba ma ogeynti dadkayga deegaanka mooyaane dabeedna waxaa dhacday subaxii labaad ayuu madaxweyne markaa jiray iyo madaxweyne ku-xigeenkii gaadhihii soo diray way yimaadeen buurtii bay soo arkeen way soo duubeen macluumaadkii oo dhan bay soo wada arkeen dabeedna waraaq bay dhibeen waxay yidhahdeen berrito soo gal madaxtooyada maalintii labaad baana loo tegey dabeedna maalintaasay igu cilmiyeen ilaahay buurta adigaa ilaalinaya ilaa Somaliland ay cagaheeda isku taagto oo isku fillaato oo ciidan halkaa dhigto oo laynagu aqoonsado adigaa inta ka horreysa ma soo ilaalinaya dee sidii baan walaalu joogaa buurtu ilaa 15 qoloo la daawadaa bay leedahay markaa dadkeena reer miyiga godka koobaad kii aynu soo marray buu ahaa
halkii jaranjaradii aynu ka soo raacnay godkii koowaad aynu soo barray buu ahaa ka labaad waan soo tusay kii saddexaad waan soo tusay waxaa ku sawirada koowaad waxay ka kooban yihiin dhowr mawduuc bay ka kooban yihiin waxaad arkaysaa nin meel taagan oo dhowr iyo toban ay hareere ka taagan yihiin oo tababaraya tababarkii markuu dhammaadayna raggii oo midba meel ku sawiran yahay ayuu mid walba ay ku daray qaarna loodii buu raaciyey oo looda ayay la joogaan kan waxaa kuu sheegayaa halkan sac baa dibi baa ku sawiran waa dibi yar markaa inankan inuu daba joogaa loodii buu caraabinayaa maogsi loodan iyo saca dibigaa yar iyo ninkaasaa u dambeeya looda kanuna waa kii xigad oo waa sac isaguna irmaan ninkan waa hoos taagan gacantiibuu naaskan ku hayaa halkana jeenigeediibuu ku hayaa labadii gacmood buu midna jeenigaa ku qabtay midna naaskaasu ku qabtay saca inankan yare buu tilmaamayaa wax inankan yare halkan taagan ayuu sacan u tilmaamayaa markaa sacan waa saca ugu quruxda badan leh sharax bay u sameeyeen qoortiisa siday u tusaan dumarkooda had iyo jeer dahab baynu ka lulaa ayaguna kalgacayl waxay u qabeen dahab